subax wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo meel kasta oo aad joogtaanba xiisadda iyo loolanka siyaasadeed ee ka dhashay qorshaha u muuqda in lagu kala bedelayo ama isku dayga la doonayo sida la sheegay in xubin mid ka mida beelaha Soomaaliyeed in looga wareejiyo kursiga gudoomiyaha baarlamaanka beel kalena loo wareejiyo ayaa waxa uu noqday waxa ugu hadal haynta badan ee dhan walba ama qolo waliba ay si uga hadlayso saacadihii la soo dhaafay waxa ugu badan ee siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka indheergaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay saxaafadda la wadaagayaan ama baraha bulshada lagaga doodayo ayaa waxa uu yahay ujeedada ka dambaysa in la yiraahdo waxa la kala bedelayaa ma garanaya qaabka loo kala bedelaya laakiin waa sida loo dhigayo reer hebel ayaa kursiga laga wareejinaya ama tusaale ahaan reer koonfur galbeed kursigii gudoomiyaha baarlamaanka ee horay ay u qaadan jireen ayaa la wareejinayaa oo waxa loo wareejinayaa xagga gobolka Banaadir ama Hirshabeelle ilaa iyo Galmudug ayuu soconayaa baa la yiri qof kamida beelaha halka degan ayaa loo soo qaadayaa gudoomiyaha baarlamaanka si ay reer koonfur galbeed iyo beesha direed midkood ay u qaybsadaan labada kursi ee gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaaraha haddaba marka halka marayo ayaa doodaha waxa ka dhashay hadalla xanaf leh isjiijid iyo waliba in qaar kamida dadkii hadlay ay u gafaan beela Soomaaliyeed iyaga oo ka dhigayba inaanay suuragal ahayn in lala hawoodo amaba lala damco kursiga ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha si cad aan u sheegay qaar kamida dadka inta badan hadlaya ee arrimahan ka hadlaya waa beelaha Hawiye iyo Digil iyo Mirifle qaar kamida siyaasiyiinta iyo waxgaradka beelaha Hawiye waxa ay sheegeen inaanay marnaba aqbalaynin in loo soo jiida xaqooda gudoomiyaha baarlamaanka wax ka yar madaxweynahana aysan iyagu haba yaraatee u tartamaynin amaba aanay isu qaamaynin arrinta waxa ka xanaaqay qaar kamida siyaasiyiinta beelweynta Digil iyo Mirifle kuwaasi oo sheegay inaanay iyaguna aqbali karin in la yiraahdo ma geydaan amaba uma tartami kartaan bal inaad qaadataan had dambayse ee amaba aad ku guuleysataan had dambayse ee waxaan ka ahayn kursiga gudoomiyaha baarlamaanka oo kuraasta kala waa idinka xidhan tahay idinkana kaasa idin xidhan haddaba xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo kamida xildhibaanada ka soo jeeda beelweynta Digil iyo Mirifle deegaan doorashadiisuna uu Jubbaland yahay ayaa waxa uu ka hadlay aragtidiisa waxaana uu sheegay in arrintani ay tahay shirqool iyo waliba dhagar ay villa Soomaaliya ama si cad buu u sheegay uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku doonayo in labada beelood madaxa la isugu geliyo waxaana beesha Hawiye uu ka dalbaday ugana digay in ay ku simbiriirixdaan dhagaraha uu Farmaajo maleegayo waa sida isagu hadalka uu dhigay waxa uu dalbaday raali gelin waxaana uu ka digay inay si fudud ugu dhacaan dabinka loo dhigayo haddaba xildhibaan Idris qoraalkani ayaa waxa uu ku baahiyay page-kiisa rasmiga ah ee uu ku leeyahay Facebook waxaana uu si cad uga hadlayaa sida ay wax u jiraan uu isagu u arko waxa uu yiri una ku bilaabay qormadiisa Farmaajo waxa macallin uu ku yahay samaynta sheekooyinka qowda maqashii waxnaha u qaban yani waxaan oo dhan waa filin qowda maqashii waxnaha u qaban oo qoladan ra'iisul wasaarahan idin siin qoladanna waxaan ku moosaynaa oo aan ku sharaynaa kursiga gudoomiyaha baarlamaanka yani waa qowda maqashii waxnaha u qaban oo Digil iyo Mirifle waxba uma wado qoladan kalena waxba lama doonayo laakiin buu yiri marka saaxiibadeena
reer muqdisho ama beelweynta hawiye siyaasiyiintooda iyo waxgaradkooda mar walba waxay ku simbiriiraxanayaan ama ku simbiriirixoonayaan qobkan moos ee farmaajo u tuurayo tusaalayaal buu soo qaatay maxay yihiin haddaba tusaalayaashaasi kow wuxuu dhowr bilood ayaga iyo ummadda kaleba iskaga hor keenay wuxuu muddo dhowr bilood waday mashruuc buu yidhi ayaga iyo ummadda kalena uu iskaga hor keenay 13 senatar oo marin habaabin ah oo isaga laf ahaantiisa xataa marnaba una aaminsanayn laakiin keli ah ujeedkiisu ahaa iska hor keenid waa ku simbiriirixdeen buu yidhi waana ku kufeen taana markhaati uga labo hadda waa kan olole asaga lagu dhisayo fariin marin habaabin ah soo dhexmarsaday ama soo dhexmarsiistay waa tusaalayaasha uu soo qaatay yacni qodobka labaad waxa uu ka dhigay inuu yahay olole isaga uu doonayo in lagu dhiso ayaa fariin marin habaabin iyo iska horkeena uu soo dhexmarsaday waxaana uu yidhi isaga oo sii wata xildhibaanku aragtidiisa waa kuwan saaxiibadeenna reer hawiye sidaan bareerka ah ama aan gabbashada lahayn noogu xadgudbaya waa kuwan saaxiibadeenna sidaan bareerka ah noogu xadgudbayaan oo ay sidan faahfaahsan ee aanay la gabanaynin kalsoonida buuxdana ay ku jirto ay u sharaxayaan sida ay mar walbaba noogu arkayaan inaanan geyin ama mudnayn kursiga dalka ugu sarreeya yacni waxay naga dhigayaan kuwo aan u qalmin xaqna u lahayn in ay talada Soomaaliya gacanta ku dhigaan ama Soomaaliya inay hoggaamiyaan amaba inay hoggaamiyaan iska daaye siday u hadlayaan kalsoonida iyo weliba bareerka aysan ka gabanaynin waxay muujinaysaa inaanaa geyinba oo aanaa u qalmin inaan soo hadal qaadno kursiga dalka ugu sarreeya inaan ku fadhiisanno daaye inaan damacno ayaa uu hadalku u dhigan yahay waa hagaag sidaasi darteed waxa uu yidhi xildhibaan maxamed xasan idris oo ka mid ah xildhibaanada deegaan doorashadooda Jubbaland tahay ama reer Jubbaland laakiin beel ahaan digil iyo mirifle ka soo jeeda waxa uu yidhi sidaa darteeda ayay xil gaar ah iska saari jireen ayaga oo yacni annaga aan wax noo ogolayn oo aaminsan inaanaa geyin ayay haddana sidaa darteed waxay xil gaara iska saari jireen waa beelweynta hawiye ee sidii ay nooga ilaalin lahaayeen inaan damacno ama hawaysanaba kursigaasi taa beddelkeeda iyagu waa naga ilaalinayaan taa cagsigeeda ama beddelkeedana hadda daaroodka waxaa looga fadhiyaa in kaalintaasi ay kalkooda qaataan maadaama sida uu yacni hore ay sheegayaan beesha hawiye inay ilaalin jireen kursiga markay iyagu meesha ku fadhiyeen labada kursi ee fulinta dhinaca ugu sarreysa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha markay iyagu ka hawiye ahaan ku fadhiyeen madaxweynaha waxay ilaalinayeen in cid kale ay soo hawaysato oo waxay sugi jireen in daaroodku la tartamo marka daaroodkana hadda sidii bay ooga fadhiyaan oo ka sugayaan buu ku leeyahay marka sidaasi darteed ayay xil gaar ah isaga saari jireen sidii ay annaga nooga ilaalin lahaayeen taa beddelkeedana hadda daaroodka waxaa looga fadhiyaa inay xilka naga ilaaliyaan oo ay kaalintii iyagu ay horey u qaadin jireen ee ka ilaalinta kursiga sare beelaha kale ah inay iyaguna markooda daaroodku gutaan waxa uu yidhi hadalladaasi iyo qoraallada noocaasa waa xildhibaan maxamed haddii aan si gaar ah raaligelin rasmiya looga bixinin mar labaad waxaa muuqata in beesha hawiye siriiqda farmaajo u dhigay ay ku dhacday ama haddii aan siday u qoran tahay u dhaho waxaa muuqata yacni qoraalkan haddii aan si gaar ah raaligelin looga bixinin mar labaad waxaa muuqata in siriiqda farmaajo idiin dhigay aad ku dhacaysaan hawiyow halkaasuu ku soo afmaray
xildhibaan maxamed xasan idris ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay aragtidiisa ku aadan dooda ka dhalatay in maxamed cabdullaahi farmaajo uu haatan bilaabay olole ballaadhan oo uu ku doonayo in laga joojiyo in beesha digil iyo mirifle ay gebi ahaanba u tartanto amaba ay doorkan ka gaabsadaan u tartamidda guddoomiyaha baarlamaanka taa beddelkeedana ay sugaan ra'iisul wasaaraha iyaguna ay isaga dhisaan maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu u socdaa maanta sida aan xogta ku helayno magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaadhka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna xarunta gobolka baay halkaasi oo lagu unkayo ama dhidibada loogu taagayo isbahaysi siyaasadeed la doonayo in lagu kala qaybsado kuraasta oo wax lagu kala maaragtay goosanayo si rasmiya looma shaacinin laakiin waa baxaya maxamed cabdullaahi farmaajo ama maanta ha baxo ama berri ha baxo laakiin qorshuhu inuu maanta baxa weeyaan dadaalkuna waxa uu yahay in beelaha digil iyo mirifle hal qof oo ka socda uusan isu sharixin kursiga baarlamaanka waxaana sharaxan ilaa 9 xildhibaan oo uu ku jiro generaal shubdhe ama taliya shubdhe waa sharaxan yahay guddoomiyaha baarlamaanku uu sharaxan yahay wiilku sodogow ahaa ahna madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareen isaga naftirkiisu waa sharaxan yahay wiil iyo sodogii labaduba mid walba damac baa kaga jira farmaajona wuxuu rabaa inuu ku qanciyo inaan hal qof oo reer koonfur galbeed isu soo sharaxin xariif markii beelweynta hawiye laga yimaado beesha duduble ahna waxaa loo wadaa guddoomiyaha baarlamaanka sida aadka loo wadwado waxaa ka socda baraha bulshada iyo warbaahintaba doodo aad u adag oo xataa laysugu gafayo waxba aan laysu reebanaynin labada dhinac ee hadda ciyaartu ay dhex taallana waxaad moodaa weerar iyo weerar celis in ay wadaan oo waxaa laysugu dhaaranayaa annaguna sharixi mayno annagana ninka iska kaana sharaxa xaafadaba waa laga saaraya bal hadda waynu arkaynaa dadaaladani iyo weliba ololaha siyaasadeed ee bilowday ee lagu wado in uu ibafur u noqdo ololihii guud ee doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliya gaar ahaan labada aqal guddoonkooda iyo tii madaxweynaha Soomaaliya oo isdaba socda waa marka si rasmi ah ay ugu dhawaaqaan guddiga doorashadu natiijada doorashadii muddada socotay ee lagu soo xulayay xubnaha ama xildhibaanada aqalka hoose taasi oo hadda gabagaba maraysa ilaa iyo sodomeeyo ama ku dhawaad 30 kursina ay ka dhiman tahay oo weli aan la soo dooranin khiyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo dalabkaasi ka soo yeeray xildhibaan maxamed xasan idris oo ka mid ah golaha baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan aqalka hoose uu kaga dalbaday beelhaweynta hawiye inay raaligelin ka bixiyaan waxa uu ugu yeeray gafka ay u gafeen beelweynta digil iyo mirifle intaasan ku soo koobaya wixii aan khalday naf iyo shaydaan wixii aan saxayna alle subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan tan iyo sarag maqal dambe